waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyaro waana ka raali ahaanaysa waqti badan baan idinka qaatay dhowr tallaabo caafimaadkaaga ku ilaali tallaabada ugu hooseysa waxa weeye nadaafadaada ku dadaal maydho ugu yaraan 2 jeer maalin kasta maydho salaadaha u weysa qaado cadaygaaga ugu yaraan 2 jeer waa inaad cadayataa sidii saxda ahayd aynu sheegnayna waa inaad u cadayataa adama aragtaa cadarka iyo udgoonkana marso isudgoone waliba sir kalena waan idin sheegayaa maskaxda la xidhiidha sirtaas waxa weeye waxa la ogaaday caafimaadka afku inuu qayb ka yahay caafimaadka maskaxda waa daraasaadka ugu dambeeyay la ogaaday kamid markasta qofka afkiisu waa caafimaad qabo waa markasta oo maskaxdiisuna ay caafimaad ku sugan tahay waxyaabaha kale nadaafadda la xiriira waxa kamid ah dhalinyaro 2 khamiis sameeysta qoliina wadaadada ay qoliyaha kalaba 2 dhar baa la sameeysta subaxiina khamiis gaar ah xiro gelinka dambana khamiis gaar ah xiro soo saxma kii maanta aad soo xidhnayd halkan suro saaka soo xidhnayd galabta waxaad xidhataa kii shalay galabaad xidhnayd dhidid badan ku yeelan maysid dharka kala duwan laftoodu qayb uu ka qaadanaya caafimaadkaaga mentality-gaagu qayb ka qaadanaya tamaragta hadii aanad awoodi karin aad labadii maalmood mar aad dharka iska badisho 2 khamiis sameeyso aad jibcaha la kala baxdo gelinka hore mid xidho midna gelinka dambe xidho udgoonka lagu dadaalo tamaragta waayahay cidiyaha la iska guro afka si fiican loo cadayo meesha ugu muhiimsan afka aad cadayeysana waxa kamid ah carabka hal cadayo nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo cadaynayo oo ugu oran jiray yaani sidoo carabka ugu dheereenayo cadayga gudaha carabka fog uu gaarsiinayo sidii inuu matagaya la moodi jiray wala sida saxda weeyaan soo sax maaha way qodobka labaad talaalka hal qaato talaalada ugu muhiimsan ee tahay iska talaashaan beer xanuunka ugu horeeya hal iska talaalo 3 jeer baa talaalkiisa la qaataa muddo 6 bilood wax ka yaraba kuugu dhamaanaya marka hore baaritaan baa lagu sameeynaya marka baaritaanka la ogaado in aanad lahayn talaalka qaadanaysa talaalka la qaato damaragta caruurta yar xaafadaha inoo joogana marka qolooyinka talaalku soo maraan buuga talaalka loogu sameeyo caruurta ha loo ilaaliyo hooyooyinkii aabayaasha waa inaad ku dhiiri gelisaan idinku hooyo iyo aabatiin idinku inaad ilaalisaan buuga marata talaalka ilmaha yar si Soomaali talaalkiisu ku qoran yahay ha loo ilaaliyo haddaad iska baqday inuu lumana sawir ka qaado saanu kaaga qaldan wixii talaal aad ka soo booday yaraanta ayaad imika qaadan kartana qaado adama aragtaa qodobkaas waa qodobka labaad weey qodobka saddexaad ee kula talinaya waxa weeye cunto caafimaad qabta cuna oo dhalinyaro waxba baranaysaa kalluunka hal cuno kalluunka iyo maraqiisa hal cabo alxayaat bataysa Soomaa 17 la lagu soo dhigaya maraqa maartay inka la wareegay qaar badan maraqa ka xanaaqay uf aanada waa qalad weeyaan maraqaasi saliida yar la socoto maartay dufanka yar la socda isagoo kiniina baan iibiyaano hadda dufanka yar maraqta la socdo maraqa isagoo maxay ah la iibiyaa kiniina baa la iibiyaa lacaga xasuusta yar yaraata kaalana ku hayee si bilaash doonaysa inaad u hesho nafaqadaas maraqa cad hatta maalinta ayna dhaqaalaha siinta hudheelka tagtaa la have bariis idib 3 kun intaad ka bixiso madiimada maraqa ka qaado soo sax maaha maraqa ayaan laga tii imka daha ku yoomina yaani nidaam u sameeya hadad maan walba hudheelka ciriiriyaad gelisaan qolada hudheelkaas ka qabanaya have bariis loo naga baxo laga oranayaa madina faadan halkaas way markaas sidaas sameeytaas khudradaha hal isticmaalo waxaad guriga ka heli karayso dabacasaha kaabashka baamiyaha xabuubta teeda qayrin chocolate-ka lowska avocado-da hal isticmaalo waxaad heli karaysaa ka isticmaal muuska waxyaabaha ugu muhiimsan ee kula talinaya waxa kamid ah isticmaalka timirta subax kasta inaad 7 xabo timir aad qaato yaa Aisha baytun laysa fihi tamrun
جياع أهله حديث كما يسأل تمرتو فائدين فربضان بلاده فيتامين فربضان ما لك لا اللي يهلين إلى قرش بدن وكابح موياني بدكه لسه تمرت استعمال كده تضوح بط تمر اسكا قاعدة مالين والبا دمارك عبيتان كبيها اللي قد دالو 2 لتر 3 لتر 6 كوب إلى 10 كوب أو بيا مال والبا وين عبتها كادي بدن بان يلانيا كادي دا عين كان اسكا سو كادي سولياشي با لعق نقدي سوما ومر walba ku shirin laga doonaya war waa kaadida horu ma sidaaye kunka dambaha laga daayay laga yeelmaayay ya midba waxa weey macaala aaga xaafada ku dhaxooli jirin baa wuxuu lahaa suuli yar buu lahaa deedna ragga aaga joogo oo dhan baa jaam ka dhigay xasano suuli yar gelaya xasano suuli yar gelaya maanta dambu xidhay suulda meesh waxaad ka dhigteen uu buuxsamaya hadii kale maanta dama mid ay kaadi kulul haysaaba u yimi ka shukuru arina asuuliyo shukuru may shukuru arina ku tafsiinaya wax kala ku dareemayo way macluude marka la iska yeelmay taa maxaad sameynaysaa hadii aad tahay dadka markay biyo fara badan cabaan markiiba kaadi ku waalanaya tahay biyaha litirka ama 2 litir aad cabayso soo qabo liin dhanaan ku dar jeex liin dhanaan ku dar soo sax ma jeex liin dhanaan hadii aad ku darto wuxuu ka ilaalinaya liin dhanaan taa biyaha aad ku dartay fooq baxa biyahana hal mar laga ma wada laaco ha weliga iska ilaali ha qalad fahmin 2 litir oo biyo marka wadaad la isticmaalo ha yiri qasabada fur may 2 litirna yar yaraysataa la doonaya hal mar oo aad biyaha cabto lafteedu caafimaad darro ku keen kara laakiin yar yarayso biyaha koob kala abaar iska yar joog koob kala ku tuur iska soo yaro wareeg koob kala hadana ku turkii saddexaad 9 ka mid kale 10 ka mid kale 11 ka mid kale 12 ka mid kale 1 mid kale waduun ilaa iyo 5 garan laga soo gaariyo biyaha wad habeen hadii la gaaro biyo cabis lama sameeyo in yaro aad dhuunta ku muxuu ahaa aad qoyso mooyaane ama koob biyo wax ka badan habeenkii lama cabo hadaad biyo badan cabto habeenkii maxaa dhacaya de hurdadaad marba ka soo kacaysa marka saacad hurdo wax la leeyahay naga soo faaruqi taangigu buuxay marka hurdadii baa khalkhal galaysa qodobka soo qodob saddexaad Soomaha marka cunto caafimaad qabta la cuno cuntada waqti go'an ha loo sameeyo qodobka afraad ay kula dardaarmaya waxa weeye deegaankaaga nadiifi waxyaabaha caafimaad qabka ka qayb qaata waxa kamid meesha aad seexanayso iyo meesha aad wax ku baranayso inaad nadiifiso حتى مساجدك marka saaw soo gashay deegaanka aad ku tukanayso dad qashin yar wax yar saxar yar duulay wax dad ku aragta ka qaad dharkaaga dad uska yar ku aragtay iska soo nadiif dadka qaar baa arkaysa kursiga uu ku fadhiyo wada dhaska uu saarayeen shukri iska caadi ma ama wuxuu masaxaya kursiga inta uu badida saarayo inta bes uu masaxaya saasi soo haynaya dhabarka gidaarka ma gaarsiinayo kursiga marka meesha aad seexana salafteeda iska nadiif qolkaaga iska hagaaji cadarka xilliyada la marsaday cadarka ugu wacan meedii sheega marka laga imaado markaad banaanka soo baxayso habeenkii markaad seexanayso caafimaad fara badan oo xagga maskaxdaada ku jira habeenkii marka la seexanayn cadarka la marsado furaashkaaga in yar ku yara boofsanaysaa waxa leeyahay barkinta waxaad galaysaa noomatu aruus adoo waxba haynin سامع وكاس لكن ساد عاد لو استعماشته مش وين نظيفته يا سامع وكاس بركيمooyinka وين la iska bedela markay 9 bilood ilaa 6 bilood ugu badnaan hadaad barkinta isticmaasho iska tuur barkinta dad baa jira 7 sano barkin isticmaalaya waduu doono kuba dhareerinaya waa halis weeyaan qodobka shanaad aan kugula wadaagaya waxa weeye dadka aad u aragto inay xanuunada fida ah leeyihiin taabashadooda iska yaree waxyaaban aad koolaya waxa kamid ah qof ay ku arkayaan laba dhalinyaro maalin arkay mid kamid ah wuxuu leeyahay cambaar ba ka soo yaacday maqaarka deedna kii kala sawta taana wala ha wana xasaxnaa cambaar ku dhacday ha ilaahay ku caafiyo wallahi ni taawashada maad ku qaadeen adigu waa maad ku qaadeentii wad qaadaysa xanuunka marka qofkii xanuun buu qabaa xagga hawada adigu mar taawashada ka daa ha gacan qaadin u ducee dama aragtaa
soo booqo qofka xanuunsanaya laakiin markaad soo booqonaysa nidaamka ilaali oo adigu caafimaadkaaga waxa yeeli soo sax maaha waxyaabay tahay inaad ilaalisaa ka mid tahay qodobka lixaad soo kii toddobaad ka lixaad aan kula wadaagaya waxa weeye hurdo fiican qaado imika aad waxa u soo badanaya diiqadii iyo culaysyadii nololeed ba aad u badanaya mid kamid ah waxyaabaha diiqada iyo culayska iyo warwarka lagu yareeyo waxa kamid ah hurdo fiican aad qaadato 7 saacadood dhalinyaro 7 saacadood seexda marka qofku ka dhaliyarsan yahay buu ka hurdo badan yahay yani ka hurdo badnaan fiican yahay kana doonis badan yahay imika aabaha oo 50 iyo 60 jira waxa laga yaabaa inay 5 saacadood ku filan tahay adiga laakiin 7 saacadood hurdaa baa laga yaabaa inay kugu filantay qofku markasta uu sii weynaado hurdadiisu way yaraanaysaa debal ka waran xilliga ay ahayd inay hurdadaadu fiicnaato 2 saacadood yahay oo habeen oo dhan aad haasaawo ku jirto waa dhibaato Soomaa marka hurdo fiican hal la qaato qodobka 8aad ama 7aad aan yiraahdo waxbarashada lagu dadaalo waliba waxbarashada caafimaadka lagu dadaalo dhalinyaro waxa la barto waliba wadaado waxa la barto dhalinyaro badan oo diinta baratay waxa uu yaqaanaan qofka hadii aanu English aqoonin inaanu caafimaad baran karin waa been weey English waa luqado Soomaali baad ku baran kartaa Arabiga aad ku baran kartaa marka English waa luqad caafimaadku luqad kuma xidhna laakiin caafimaadku waa xirfad adigu aad u baahan tahay weeyaan marka deegaanaduna way kala yara xariifsan yihiin imika Hargeysa oo kale deegaanadeeda dadka dhalinyarada wadaadada joogay waa dad soo jeeda weeyaan oo caafimaadka raadinaya oo waxbarashada doonaya oo laakiin burco hadii tababar yar lagu qabto maanaya ka gaabnay mise dadkan u jeedin talo inaan ka gaabnaan maranay eed anaga saaran qolooyinka caafimaadka saar maragta imika Hargeysa waxyaabaha tababarooyinka ku qaban jira waxa kamid ah gargaarka degdega ah ee macalinka laga rabo inuu aqoon u leeyahay si uu ardaygiisa u badbaadiyo hadii xaalad degdeg u galo ilmo yar baa agtaada sakiina jirta dhiig baa ka soconay maxaad u qabani mid baa naqas ku haya maxaad u qabani mid baa jabay maxaad u qabani uu gubtay maxaad u qabani ma daawanaysa waa ruux jabnay baa waxa ka qaldan tig ugu yeedha xaafadoodii laakiin adigu wuxuu si qabatay la doonayaa haddii ilmaha yar naqasku hayo u dhimanayaaba naqasku markuu qofku hayo uu ka dhimanayaaba Soomaa inaad wax way ku dadaashaan arrinka ugu dambeeya ku soo gabagabeynaya waxa weeye markasta oo aad caafimaad darro dareento waa inaad raadsataa caawimo caafimaad oo inaad raadsataa dhakhtarada hal la tago hal la istaweeyo maragta dhakhaatiirtuna siday u kala aqoon leeyihiin hal loo aado warwar iyo diiqad iyo culays baa dareemsa dhakhtarka xanuunada nafsiga la kulan uma baahna aad cilaajka ku wareegto oo lagu raado musliyaana ku haysa hadii wadnaha laga hayo xaalad kale aad dareemayso yani xaaladda aad dareemayso xaaladda ku haboon u tag hada maragta caafimaadkiina ha laga fakaro soo sax maaha ilaahay subhanahu wa ta'ala haydan barakeeyo kana raali hada waqtiga badan yani idinka qaatay